waxaan mar kale ku laabanaynaa bal wadanka Ethiopia iyo arinta wabiga Nile. Ethiopia mar walba oo xiisada ay gudaheeda ka cusboonaadaan waxyaabaha ugu badan ee ay dawladdu carabka ku celinayso shacabkan aad moodo inay ku maaweelinayso waa daabka ay ka dhisayso wabiga Nile ee korontada. taasi oo dawladda Ethiopia sida ay sheegtay shalay khudbadii ay madaxweynaha wadanka Ethiopia ka horjeedinaysay labada gole ee wadankaasina ka sheegtay 12 bilood la filayo inay koronto ka helaan shacabka wadanka Ethiopia malaayiinta. sidoo kale tan dhaqaalaha wadankaasi ayaa la doonayaa in sare ay u qaado korontadani sida ay sheegeen biyaha wabiga Nile waxa ay sheegeen in nacafisan doonaan. laakiin taatu lamid ah waxa jirta maalmahan iyada oo Masar ay horay u gudbisay waraaq golaha ammaanka in ay arinta soo farageliyaan kulamadii kala duwanaana la isku fahmi waayay ee Afrika dhexdhexaadinaysay ayaa hadda waxa wali taagan xiisadaasi waxayna labadii maalmood ee shalay iyo maalintii ka horeysay dawladda Ethiopia soo kala saartay laba amar oo la xiriiray arinta wabiga Nile bal waxa ay yihiin aan marka hore idin dulmaro. Ethiopia ayaa waxa ay diiday in diyaarado ay dul maraan biyo xireenka wabiga Nile sida laga soo xigtay website gaar ah oo ay leedahay wasaaradda socdaalka ama duulista ee wadanka Ethiopia. agaasimaha guud ee waaxda duulimaadyada ee wadankaasi Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in wadatashi ay la sameeyeen waaxda ammaanka kadib la joojiyay in diyaarado ay dul maraan gobolka Bishangul Gumuz waqooyi galbeed ee wadanka Ethiopia halkaasi oo ah meesha laga dhisayo biyo xireenka ayaa lagu sheegay warbixinta website-kaasi lagu baahiyay. waxa uu sheegay in diyaaradaha rakaabka iyo waliba kuwa alaabta aan midna loo ogolaan doonin in ay dul maraan biyo xireenka balse xaalada qaar ayaa loo ogolaan doona. madaxa waaxda duulimaadyada rayidka ee wadanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in wax iska caadi ah ay tahay in Ethiopia ay mamnuucdo duulimaadyada dulmara mashaariicda waaweyn ee gudaha wadanka Ethiopia. dawladda Ethiopia ayaa mashruuca biyo xireenkani oo ay ku baxday lacag dhan 4.8 bilyan u aragta mid muhiim u ah kobaca dhaqaalaha ee gudaha wadanka Ethiopia balse waxa uu muran xooggan kala dhaxeeya mashruucan wadamada Suudaan iyo Masar oo Ethiopia ay isku hayaan arintan. saddexdani dal oo dhamaantood wadaaga wabiga Nile ayaa u arka in biyo xireenkani weyn uu yaraynayo biyaha ay isticmaalaan. saraakiisha sarsare ee militariga dalka Ethiopia oo uu ka mid yahay abaandulaha ciidanka cirka ee wadankaasi Ethiopia Yilma ayaa waxa ay horay u sheegeen in ay difaaci doonaan biyo xireenka haddii la soo weeraro. waxa ay sheegeen inaysan cidna uga dambeyn doonin xaaladda biyo xireenka iyagoo sheegay cid kasta oo soo dulmarta ama isku dayda biyo xireenkaasi inay dhibaato ku sameeyaan in ciidamada cirka ee wadanka Ethiopia ay u diyaarsan yihiin. Yilma ayaa waxa uu sheegay in iyaga ay mas'uul ka noqon doonaan wax kasta oo dhibaato ah oo halkaasi lala soo daandaansado. waxa uuna sheegay in iyagu ay diyaar u yihiin difaaca dalkooda iyo waliba daamkan oo ku sheegay nolosha wadanka Ethiopia iyo dadkiisa shacabka. dadka siyaasadda wadanka Ethiopia indhaindheeya ayaa waxa ay sheegayaan in arintani ay muujinayso kala fogaanshaha saddexda wadan ee Ethiopia, Masar iyo Suudaan. balse sidoo kale waxa jira qaar sheegaya in arinta wabiga Nile iyo dhismihiisa biyaha ee korontada ay ka sameynaysa dawladda Ethiopia ay noqoto mid xukuumadda markaasi jirta ay ku awrkacsato dadka shacabkana markay siyaasiyiintu ay kiciyaan lagu damiyo xiisada. arintan ayaa macnaha fasirkeedu noqonaysa in xiisada haatan ka taagan ee siyaasadeed gudaha wadanka Ethiopia ee u dhaxaysa dawladda dhexe iyo qaar kamid ah maamulada wadankaasi Ethiopia iyo waliba qaar kamid ah xisbiyada mucaaradka in dawladdu ay ku beer la xawsanayso dadka shacabka ah arinta wabiga Nile oo ah inay difaacayaan dadka shacabkana ay u danaynayaan. iyadoo Abiy Ahmed marar kala duwan uu ku soo celiyo qorshihii uu bilaabay Mala Zanaawi sidoo kale tan Haile Mariam Desalegn uu bilaabay ama uu asaasay Mala Zanaawi Haile Mariamna bilaabay aniguna waan dhamaystiraya. halkaasna ay tahay waxyaabaha dadka shacabka ee wadanka Ethiopia mar walba qaarkood ay u arkaan in waxyaabo badan ay xukuumadani qabatay ama ay waxyaabaha
shacabka dan u ah ay qabanayso halka kuwa kaleeto ay arrintaasi gebi ahaanba u arkaan mid aan micno badan soo kordhinaynin cabdi Ethiopia dhibaato gudaheeda markaan ka baxno arrimaha dibadda oo la xiriirta wadamadan dariska la ah waxa aad u soo noqnoqonaysa erayo dhowr ah oo webiga Nile laga sheegay kuwaasi oo ah qof kasta markii oo qalalaasihii Jawhar Maxamed waqtigiisii uu dhacay gacmo shisheeye oo xitaa waxa jiray dad soo sawiray calamo lagu dhaxwatay banaanbaxyadii Oromia calanka Masar buu ahaayo dadka qalalaasahan dibadda laga soo abaabulay hadda waxa taagan oo socota arrintan waa urkacsi oo ay dawladdu dadka shacabka ay ku kicinayso maadaama ay arrintan siyaasadda culayska gudaha wadanka siyaasadeed haysato qaarkood waxay leeyihiin doorashada ayay kaga gabanayaan arrintan labada hadal midna uu yahay kii shalay ahaa inaan gebi ahaanba la dulmari karin dhaamkan wax diyaarada dulmari karin midna ay tahay waanu difaacaynaa wax kasta oo yimaada taliyaha ciidamada cirka wadanka Ethiopia ka yeertay culayska ay dareemeen iyadoon ognahay wada hadalladiina inay muddooyinkan taagnaayeen maxay tahay marta hal baa bisha ku jirta dhibaato walba ka jirto gudaha dalka Ethiopia halagu kala maaragtay duwanaado laakiin waxaan moodaa arrinta GRD ama maaragtay reconnaissance damka in loo siman yahay oo hal muuqaf laga taagan yahay waxayna u badan tahay lacala xitaa maanta haddii wadamada isku haystaan Suudaan ama maaragtay Masar ay wax kale oo cusub hadii ay la imaadaan waxaad moodaa xitaa gudaha dalka Ethiopia in Ethiopiyiinta ay iloobi doonaan ama ay hakin doonaan farqiga eega u dhaxeeyo oo siyaasad ahaan ilama arrintan xal laga gaaro wadanka Ethiopia xaaladiisu wali dhinacyo badan ay ka taagan tahay culaysna waa uu saaran yahay laakiin Abiy Ahmed iyo maareyntiisa ayay arrimahaas oo dhan ku xiran yihiin sida dadka siyaasadda wadankaasi indheeya ay sheegayaan waxayna dad badan leeyihiin hadii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu jilaac badan uusan ka muuqan xaaladaha wadanka sidan ma aysan u baaheen farahana uga baxeen laakiin taliyaha ciidamada wadanka Ethiopia iyo sidoo kale abaanduulaha iyo labaduba sheegeen inaysan taladu wadanku faraha ka bixinay ku jirto gacanta dawladda wixii ka soo baxa ama soo dhaafa siyaasiyiinta iyo xukuumadan ay difaaceeda iyagu qaban doonaan waa sida ay sheegayaan halkaas ayaynu kaga gudbaynaa arrintaasi la xiriirtay wadanka Ethiopia iyo biyo xireenkaasi oo wali ay hadal hayntiisu isagana taagan tahay